gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahin Nafaqo oo aan ku booqanay xafiiskiisa magaalada Burco ayaa nooga warbixiyay xaaladda guud ee gobolka Togdheer isagoo sheegay in guud ahaanba xaaladda gobolka tahay mid degan isla markaana nabada sidoo kale waxa uu gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer baaq u diray beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex mareysay degmada Ceelafweyn iyo deegaamada hoos yimaada isagoo ugu baaqayna dadka walaalaha ee ku dhaqan deegaamadaasi inay sida ugu dhaqsaha badan ay colaadda u joojiyaan isla markaana ay ka tashadaan aayahooda iyo mustaqbalka. shirkayga jaraad wuxuu ku saabsan yahay maanta ama daaran yahay horta guud ahaan gobolku waa nabad baaq u diraya nabadeed beelaha walaalaha ah ee dirirtu ka dhaxayso ee runtii sanadkii saddexaad madaxa la gelaya arrinkaasi dawladdii runtii ay ku dhibaatootay ummaddii reer Somaliland runtii aad iyo aad u dhibtay waxaan leenahay walaalayaal ilaahay ka baqa islaamnimada iyo dhaqanka iyo diinta u soo noqda nabad baa naas la nuuga leh waxaad nabad ku weyday colaad ku helmaysid waxaan rajaynayaa in ay u dhagan nugulaadaan dawladooda iyo shacbigooda reer Somaliland hadday culimo noqon lahayd iyo hadday indhergarad noqon lahayd waxaan leeyahay ilaahay ka baqa wixii dhacay waa dhaceen wax dambe yayna ka raacin wax dambe yayna ka raacin aanu talinno wixii dhintay way dhinteena waxa nool aanu talinno biidinilaahi alkariim. waa Maxamed علي أحمد محمد كابه تلفزيون كعالمي Ariel مقالة برعو.